بسم الله الرحمن الرحيم magacaabis madaxweynaha dawladda Puntland markuu arkay dastuurka Puntland markuu arkay baahida loo qabo isbedel lagu sameeyo gobolka bari markuu tixgeliyay tala soo jeedinta wasaaradda arrimaha gudaha wuxuu xiriyay wuxuu magacaabay Yusuf Maxamed Wacays loo magacaabay gudoomiyaha gobolka bari Axmed Cali Cabdullaahi waxaa loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka gobolka bari Axmed Xaaji Maxamed Axmed waxaa loo magacaabay gudoomiye ku-xigeenka gobolka bari sidoo kale waxaa madaxweynaha dawladda Puntland u magacaabay gudoomiyaha degmada Bosaso Maxamed Saciid Shabeele wuxuu sidoo kale madaxweynuhu u magacaabay Qaasin Cabdiraxmaan Maxamuud Caluuke gudoomiye ku-xigeenka degmada Bosaso sidoo kale madaxweynaha dawladda Puntland wuxuu kala diray golihii deegaanka ee degmada Bosaso wuxuuna furayaa wasaaradda arrimaha gudaha in lagu soo diyaariyo golo deegaan oo tayo leh 45 casho gudahood xeerkana wuxuu dhaqan galayaa markuu madaxweynuhu saxiixo waana saxiix ma mahadsantii